بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada walaalayaal waxaan ku jirnaa buuggeena maamulka iyo maareynta qaybihiisa kala duwanaa waxaan ka soo hadalnay shaqada maamulka iyo qaybaha ay leedahay ayaan ka soo hadalnay waxa ugu dambeeyay casharka ugu dambeeyay oo ahaa shaqaaleysiin waxaan ka soo hadalnay shaqaaleysiin muhiimadda ay leedahay ujeedada laga leeyahay waxyaalaha shirkadda ku soo kordhin karto ayaan ka soo hadalnay maanta waxaan ka hadlaynaa shaqaaleysiin talaabooyinka loo qaado macnaha haddii aad rabto inaad shaqaaleysiiso qof buuggan wuxuu kaa saacidaa talaabooyinkii aad qofkaas ku shaqaaleysiin lahayd ayuu kaa saacidayaa oo talaabooyin sax ah oo standard oo la isla raacsan yahay oo adduunka inta badan la isla qaatay Soomaaliya oo kale waa jiraan shirkado saas u sameeya oo talaabooyinkaas standardka ah marsiya laakiin waxa iska badan talaabooyinka iska qardajeexa ah ayaa badan aad u badan waana rajaynaynaa insha Allah inay wax weyn ka bedeli doonto dadka inta badan waxay iska aaminsan yihiin in qof taqaano cunuga adiga gacan ka soo qabatay waxyaalahaas shaqada ku hagaagayso laakiin waa la iska bala doonaa wax oo daqiiqad ku dhamaahayo ma ahan macnaha marka waxaan sameynaynaa insha Allah haddii la yiraahdo talaabooyinkaas waa cad ayaan idin sheegaynaa talaabooyinkaas marka process-kan horta maraan marka koowaad horta hanaanka shaqaaleysiinta waa inuu maraa talaabooyinka dhowr ah sida koow qiimeyn shaqaale waxaan halna u sharxi doonaa qiimeyn shaqaale labo bilow hawsha shaqaaleysiinta saddex kala dooro listi afar shaqaaleysiin induction ayaa lahaa qofka shaqada in la geliyo iyo midda ugu dambayso ah qiimeyn qofka in loo sameeyo marka mid aan galeynaa koow midda ugu horeysa waxaa la yiraahdaa qiimee baahida loo baahan yahay horta koow waana arrin xasaasi ah macnaha shaqada shirkadaha badan waxa cuuriyaamiya in qofkan meel igu raadi cuuriyaamiya waxaa la rabaa horta baahi ma soo baxday shaqo loo baahan yahay ma taaganta ma soo baxday muhiim waa koow horta shaqada loo baahan yahay shirkadda waxaa laga qiimeeyaa marka shaqaalaha loo baahan yahay waxaa laga qiimeeyaa shaqaale ma shirkadda ka tagay tusaale ahaan meelaha waxa ka shaqeynaysay 10 qof 5 tagtay waa iska caddahay baahiyaa jirto shaqaalaha shirkadda ka tagi rabo shaqaalaha ku soo gudbiyay shaqadan ka tagi rabo ku dhahay shaqaale waxa jira heshiiskiisa oo dhacayo ama asaga macnaha ka dareentay heshiiska oo dhaca automatic heshiiska waa la galaa 1 sano 2 sano heshiiska waa la galaa shaqaalaha marka heshiiskiisa haddii uu dhici rabo laba mid waayo ama shaqadiisa ku qanacsan tahay in heshiiskii waa dhici rabaa in la sii gasho heshiis kale oo la sii hadasho xaaladdiisa si qiimeyso iyo in aad ku qanacsan shaqadiisa oo heshiiska markuu dhaco aad dheerato saaxiib nabadgelyo heshiiska waa dhacay aad dheerato labaas mid ay noqonaysaa marka haddii heshiiskiisa shaqaalaha uu sii dhici rabo hadda ka sii fakar booskiisa cidii aad gasho lahayd hadduu asugu ka tagay iyo hadda adiga burinaysa labadaba waa laga qiimeeyaa meelaha waxa laga qiimeeyaa waxa kamid ah shaqaalaha howlgabka noqon rabo shaqaalaha shirkadda duqoobi rabo shaqaalaha shirkadda ka tagi rabo shaqaalaha heshiisyada dhacayaan shaqaalaha halkii ahaa shirkadda aan ku qanacsaneyn oo ku dhahaya haddii heshiiska noo dhamaado waa tagaynaa waxyaalahaas oo dhan inaad qiimeysaa laga rabaa okay qodobka labaad oo tilaabada labaad waxa waaye bilow hawsha shaqaaleysiinta markii aad dareento in stepka koowaad aad soo fahantay oo baahida loo baahan yahay aad dareentay hawsha shaqaaleysiinta bilow suuqa soo xanso marka internal iyo external labadaba booskan ka banaan rabay yaa ku buuxin raba internal external ahaan soo qiimeey ma gudaha ka qaadanay shaqaalaha hadda ku shaqeeya ayaa qaar kamid ah kor u soo dalacsiinay مثلا tusaalahan position supervisor banaanaaday masuuqa ka soo qaadanay position supervisor kaas mise shaqaalihii ku shaqeynaa mid kamid ah soo dalacsiinay hoosta mid kale ka soo gelinay labadaas adaa doorkeeda iska leh shirkadaha inta badan haddii boos xoogaa sare u yahay
waxay ka qaataan dad qof shaqaalooda kamida oo fahmaya policy iyo shuruucdii iyo waxyaalaha wax lagu xalinayo yaqaana ay wax ka qaataan shirkado badanna waxay sameeyaan banaanka ka qaataan oo booskaas waxay diidayaan inay xor inta geliyaan yani tartan xor inta geliyaan ay banaanka qaataan ay doorbidaan marka waxay ku xiran tahay mar walba xaaladda ku xiran tahay hadii position uu yahay position hadda la abuurayo hadii uu yahay oo kale waxa fiican banaanka qaadato hadii uu yahay position oo critical oo dhib badan oo shuruuc badan u baahanna gudaha ka qaado TV radio journal waraysi ya qiimeyn maamul waxyaalahaas oo dhan waa loo qaataa waa macnaha waa xogta waa laga raadiyaa tusaale ahaan TV inaad geliso waxaan u baahanahay position noocaasa radio inaad geliso journal inaad geliso waraysi inaad wargeys inaad geliso journal iyo wargeys waa isku mid ah umaleynaa qiimeyn maamulna waa dhici kartaa in dadka maamulka ah oo shirkadda ka shaqeeya haddii 10 qof yihiin shirkadda boorkeeda ku jira 10 qof 5 qof waxay yihiin in la yiraahdo hal qof keena qof walba qof ha keeno waa jirtaa dabeecadda suuqa waa ka jirtaa adduunka laftirkiisa inay ka jirtaan jecelahay bahalkii ahaa laakiin yani way jirtaa ma qiimeyn maamul inay yiraahdaan meeshaan aan wax ka qaadanayno oo macnaha shaqaalaha cusub u qaadanayno waa meel gobola waxay u baahan tahay dadka deegaanka ninka nabadoonka oo kale in ninkan keen laho iyo waxyaalo badan ajiri karo nin wadaad ah u baahanahay kale iyo nin oo bahalkii ah modern u baahanahay kale iyo yani meeshii laga qaadanayo ay ku qiimeysan tahay okay kala dooro marka listiga qodobka saddexaad oo talaabooyinka kamid ah talaabka saddexaad waa kala dooro listi dada soo qiimeyn keensaday dada macna CVyaal keensaday waxba ku soo baxay kala dooro dadkii maxaa lagu kala dooro karaa imtixaan qoraal ah qof dadka qaad si u fahanto qofku wax ma qori karaa qiimeyn xirfadeed u sameey tusaale ahaan waxa laga yaabaa shaqada aad rabto inay tahay computer si loo furo si loo xiro inay shirkadaada ka banaan tahay xirfada laga rabaa marka qofkaas bursa laga rabaa inuu garaaco inuu albaabka wiyo ama albaabka halaabo ama koronto hadii halaawdo inuu sameeyo u baahan tahay qiimeyn xirfadeed ka qaadaysa kaas oo kale macnaha koronto notary vas iyo maxay kala yihiin iyo hebelo iyo xalaasa wadiina bulkeeti oo ka shaqeynaa tusaalahan dhismo ka shaqeynaa qofkan bulkeeti sales u saara dhoobada see loo qasa xalaasa wadiina qiimeyn dhaqankiisa waxaa jira shirkado inta badan dhaqanka qofka ka jecel wax kasto مثلا شركة واحد أجر نعب قفك فود له قفك السروال كدر له قفك جرك له قف عن جر لهين قف أوهل كهاي شاتي سكودجيا قف عن شاتي سكودجيا شركة أجره مركا شركة ده مركا هذه معمولها أطهي هذا يكان معناها هذا يكان معناها رقم كدتك كي يكون قيمة ساعة تاس هذا فهم كره مركا qaabka ku door leh adaa yaqaan shirkadaada qaabka dadku u shaqaaleysiiso muqaf ribaadiyaha jirta muqaf ebelow rabta muqaf saan rabta muqaf oo aan wax badan fahansaneyn rabta muqaf dhool la cadeynayo gabdhaha u sheekeen rabta dhaqanka shirkadda ku xiran taas shaqaaleysiinta marka ayaa gelaysa tilaabka ku xigto waxa way shaqaaleysiin ina qofkii processkii waa ka soo baxay waa soo dhamaaday shaqaaleysiinta galgeeda marka processka shaqaaleysiinta galay booska loo qaadanayo u sheeg booskaas ka shaqeey doonta marketing ka shaqeey doonta waaxda saleska ka shaqeey doonta meeshaas ka shaqeey doonta sharciyada iyo dhaqanka shirkadda u sheeg sharciyada iyo dhaqanka shirkadda muhiim waa qaabka processka wax loo xalliyo waxaas qofka fahansiya waxa kale oo jira mushaarka oo qofkan qaadanayo $100 leedahay $100 leedahay $200 leedahay $1 leedahay qofka u sheeg macnaha heshiiska marka la geliyo magdhow haduu jiro incentive u sheeg dalacsiin hadii jirto iyo qaabka dalacsiintaas lagu gaari karo sanadkiiba marad la dalacsiya dadka waxaasna lagu qiimeeyaa oo sheeg haduu macnaha la iima sheegin waxaas ku dhahay waxa kale oo jiro qofku waa shaqaale u sheeg in la wareeji karo marka la rabo in la wareeji karo u sharax oo hadda u sheeg macnaha haduu qofkan wax ku dhigi karaa ana xamara igu qaad xamar bisan kaaga shaqeynaa maya hadda u sheeg oo ka dhaadhici dheh meeshii qof waxa jiro markasta la wareejiyo saasa jirto dadka u sheeg okay qiimeyn u sameey marka qof markuu 3 bilood u horeeyo oo shaqeeyo qiimeena loo sameeyaa waliba qaasatan waaxda shaqada shaqaalaha inay sameeysaa fiican
waxa shaqaalaha dad jireen maamulka markaas joogo qofkan intee laga qiimeynaa waxa laga qiimeynaa bilaha hore inta uu ku jiro sida uu shaqada u yimaado ma soo dhaqsada ma soo daaha fahamka shaqadii ma fahmay waxa laga rabo ma fahmay sugitaanka shaqadii ma sugaa macnaha مثلا iska kackacayo maanta iska baxbaxayo iska soo wareegayo cabaarka bacdi TV iska fiirsaayo Facebook iska fiirsaayo miya ya la macaamilada shaqaalaha iyo macaamiisha shaqaalaha oo la shaqeynayo iyo macaamiisha soo ku yahay ma nin ku xunaa ma nin ku fiicana waxyaalahaasna wax laga rabaa ina qiimeyso marka waxyaalahaas oo dhan muhiim waay qiimeynta shaqaalaha hadda qofkaas Ilaahay u cabso yani saa u qiimeyso ku cabir performance-giisa ama wax qabadkiisa hadda qofkaas ku cabir ninkan saleski waa fahmay ninkan saan waay wax badan ma joogaayo waa saas waay adaa laga rabaa ina qiimeyso waa maasantiin casharkan maanta san ku soo keenayna haddii u baahataan buugga oo in saacido naga soo xiriira la markaas maasanidin